وراadka ay macsiyada iyo dunuubtu ay ku samayso qofka. ikhwaani waxa jira dadka dhibaato badan waxay noo geystay dunuubta aynu inagu samaynayno iyo macaasideenna, laakiin waxaa suuragal inaadan garanaynin meesha wax kaaga socdo. bal waxaan fiirinaynaa inaan soo qaadano hadal aad qayim ah uu soo jeediyay ibnul qayyim rahimahullah oo ka kooban 10 qodob oo uu ku soo bandhigay afarka ama raadka macsiyadu ay ku reebto qofka. koow waxa kamid ah xirmaanul ilm. haddii dembigaagu uu bato waxa laga xirmaaninayaa, waxa laga celinayaa, waxa laga joojinayaa, waxaan ku suuroobaynin inaad cilmi barato ama xifdiga quraanka ha noqdo ama cilmiga kaleba ha noqdo, hawshu way kugu adkaanaysaa. arintaasina markuu yimid imaamu shaafici rahimahullah sheekhiisi imaamu maalik uu hortiisa soo fadhiistay oo imaamu maalik uu arkay garashada iyo caqliga iyo dakaaga iyo maskaxda iyo xifdiga ka soo socda imaamu shaafici wuxuu yidhi araa ana allaha qad qadafa fii qalbika nuuran falaa tudfi'uhu bidulmati almacsiya. waxaan u jeedaa inuu allah subxaanahu wa tacaala qalbigaaga uu ku tuuray nuur buu geliyey, ee nuurkaa ha ku baktaynin oo ha ku daminin macsiyada. walidaalika ikhwaanii cilmigu waa nuur, hanuunku waa nuur, marka macaasiduna way daminaysaa, shaygaasay joojinaysaa. imaamu shaafici marka daatuhu ayaa wuxuu u tegay sheekhiisii wakiic wuxuu ku yidhi ii dardaaran, waxaan rabaa inaan saan cilmiga u baran lahaa aad i tawjiihiso. wuxuu yidhi shakawtu ilaa wakiicin suu'a xifdi faarshadanii ilaa tarki almacaasi waakhbaranii biana alcilma nuuru wanuuru allahi laa yuhdaa licaasin. waxaan u sheegtay buuhi sheekhaygii wakiic xifdigayga iyo cilmi barashadaydu inay liidato. wuxuu igu hanuuniyey oo ii sheegay, wuxuu igu irshaadiyey oo ii sheegay inaan macaasida aan ka tago. وأخبرني بأن العلم نور، وحوي شيء إنه يهي علم نور، نور كإلهينا لمصيو قف عاسي لمصيو. إذن أحبتي في الإسلام يا الله سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. إلهي سبحانه وتعالى كبق الله أيا إذن برايا هدي الله لقبقه ومعاسد اللي قفقاده ربي بضماني إنه يسوحنا بريدونه إن شاء الله تعالى. أرنت اللباد أما قضبك اللباد oo raadka dambigu uu kugu reebayo waa wax la yiraahdo xirmaanu rizqi. bal fiirso markii hore maxaa kugu dhacay xirmaanu ilm, ilmiga in laga xirmaaniyo oo baran kari weydo. laba waxa kugu dhacay xirmaanu rizqi, in nolosha Ilaahay kugu adkeeyo, in biilka alla kugu ciriiriyo, in shaqooyinka laga soo cayriyo, in kuwa aad qortana lagu diido oo lagu soo wicin oo shaqada meel laba adenkeel nolosha oo dhan inay kugu adkaato. arintaasna waa xadiiskii شيخ الألباني وحسن ككدغي ورسولك الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفيرسو قفك وحال لغا حرمانيا رزقك إيا بيلك إيا نولشا دنبي أو سميي درتي أيانا لغا حرمانيا، دنبي أو قفك سمينيو درتي أيا وحال لغا حرمانيا وحال يراهدو رزقي إيا نولشي ويكو أتكانيسا. طيب شقة تجيسا ولو صو عيرنايا متكلا أبليكيشن كبوحنيسا لو صو عماية لو قادن مايو دبات أيا نرب وحبات كينيسا وصو شقيسان لو شفتي بعد قشا لكن واحد شقيسو دان العقب بدن بعد سميسا كو مارت كو في اللاد ميسو. والله إخواني وحنا ركب مالين دويد نين أقوم بدن له أو إنجينير أو سميات بشي أنت وضع حيسا 5,000 iyo wax ka sareyso oo door 5,000 oo dollar buu bishii sameeyaa 5 ilaa 6 markaad u yarahay wuxuu 5,000 ma sameeyaa. u fiirsada billahi alaykum hada ar-rajul ninkaas haddana wuxuu ku qadeeya ma haysto, wuxuu ku casheeya ma haysto, baabuur ku socdo ma haysto, guri uu seexda ma haysto, waa rafaadsan waa dhibaataysan. maxaa jira lacagtiisii iyo noloshiisii wuxuu ku bedeshay qamaar iyo waxyaabo xun kasiina ayuu ku tagaa. marka taasi maxay ku tusinaysaa Ilaahi subhanahu wa ta'ala inuu yahay qofka lugaynayo oo maanta baabuur raaca aan haysanin, qofka ugu shaqo badan ama ugu lacag badanna wuxuu noqonayaa isay. marka wixii arkimays Ilaahi baa ka xirmaanaya barakadu Allah ka qaaday. arinta saddexaad
oo iyadana dembigu raadka uu kugu reebayo iyo macaasida aad samaynayso waa wax la yidhaahdo waxsha inuu qofku dareemo, waxshatun baynahu wa bayna allaahi wa waxshatun baynahu wa bayna annaas. qofku wuxuu noqonayaa qof qaloonaya, qof walwal uu ku jiro, qof aan deganayn, dadka waad ka carari, ilaahayna subxaanahu wa tacaala isagana waxaa weeyaan kuma dhiiran kartid. إلا وكي حديثك رسولك صلى الله عليه وآله وسلم من أحب اللقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره اللقاء الله كره الله لقاءه. قفك جعل هذا إلهي إنه لكلمه الله نواجعلي إنه لكلمه، قفك النعى إنه إلهي لكلمه الله نوانعي إنه لكلمه. تاسو هاي دليلو تاي مركا قفكاس وحوق با إساقر ندقنا الآن أيا كجرت. ولذلك أيا ددك سلفك أو حيورين جرين دنبيغا آنو سمينينو waxaan ka garanaynaa reerkayga iyo daabadayda oo gaadiidka aan saaranahay ayaan ka garanayaa. faras hadday wataan, geeli ay saaraayeen, dameeraha ay markii xilliga la fuuli jiray oo maaragtay la kori jiray, kuwaasaan waxaan ka garanaynaa macaasida aan samayn. hadda maanta haddaad baabuur leedahayna baabuurkaaga waxaad ka garanaysaa maanta garaash baad geynaysaa, berri garaash kalaad geynaysaa, maalinba meel buu ka jabayaa, maalinba meel buu duqeeyey. يعني معاصيدي بعدك كابت غير كاجي يا أديك واسكسو هرجيتان ما عاو بوق باقولي كجرة هبين دب بوق كلاجرة مشاكل بمشاك تاجن دم بيجا عاد سمين يا معاصيد غير كاجي كم مقن دم بيجا عاد سمين حولها هاجي كم مقن دم بيجا عاد سمين الجديد كاجي يا بابور كاجي أي كم مقن إنسان تاسنا وأرنت كلا وصد هذا الراد كأيكون ريبي سمع سيده أرنت أفراد إخواني يكون ريبي سوقف كراد كيكون ريبي دم بيجو يكون ريبي وحويه تعصير الأمور عليه قفك إنه كو أتكاذان وحان ترينينا قضبادي ابن القيم رحمه الله تريي تعصير الأمور عليه إن أمورتو قفك أي كو أتكاتو وحوال بوا كو أتكانيان البابات قراعيسا الباب كلاغافر مايو وكو حريه شغل ربطاينا سبيسو هيلي ميسين وحوال بغضو لقاغضو وكو أدقيه أرنتاسنا ومفهومك اللي فهمايو آيات القرآن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب والفيرسو إلهي سبحانه وتعالى قفك كبقى مخرج بو الله صاريا الباب بو الله فريا أرنك استوى لبو كتمد إلهي سبحانه وتعالى ميلو كبح أيو السمينيا آياتك ومن يتق الله يجعل له من أمر يسرى قفك الله كبقى إلهي أمور تيسا يسر وورني وأفضلين يا رب سبحانه وتعالى إذن مع هالك كسوى بحي قفك الله كبقى الدنوب بدن الليماد الجفاف بدن الليماد معاصده أي كبضته أمور تأيا كل عصلانيسا أو كل أتكانيسا إساقا كاسنا وقلبك أفراد قلبك الشناد وحويه وحلي هذا الحيرة إنه قفك وقبه إنه لا يهتدي إلى الطريق الصحيح. يعني قفك وقف وريرسن مقرن كروضة الصحراء ما أنت مسوا أنت رسولك حديثك بخاري رسولك صلى الله عليه وآله وسلم خطا مستقيما ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله. رسولك صلى الله عليه وآله وسلم وكيد جيحي جد توصن أيو سدا وحريق هذا دنك ملك تابو جدد يرجع جابا كجيحي دنك بدح ذابو كوكلا كجيحي. رسولك وحوري صلى الله عليه وآله وسلم هذا وسبيل الله وضدي إلهي سبحانه وتعالى وطا وهذه السبل كونا وودويك يرير ودك استغيرنا إما إيش كل ما الشيطان باتاغن وددك ويرايا كذبوا رسولك الحلو وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تاسوا وضدي ونكسنيد وصراطك مستقيمك وسبيل الله ووددي الدين وضدها هلا قاضو لكن ودوين كان عوجك كجري قلوعو يعني لمر بور رسولك صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني مركز تاسنا وحين نقول يا قلبك الشناد إنه قفكو يهي قف وريرسن أو وضد الصحدة أنكو هنونينين أيو الدنبي وقيسانيا. أرنتا لحاد وحين كمتا أمور طوو أذك وحاوية وظلمة يجد العاسي في قلبه ومجدي وقفك عاسية وكهلي قلبي ومذوبانيا إسيان كاقي بابتي دنوب تادي بابتي قلبي مركم حيسو بدلي إنه مذوب هذا بلوفير صو هذا عبد الله بن عباس وليه رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه إلهي سبحانه وتعالى هكرر لنغضه وحيري إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب
وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق. وإن للسيئة لسوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في المال وبغضا في قلوب الخلق. وفرصة وشن يشن انتاسو عبد الله بن عباس وتريه 5 oo ka soo horjeedo 5 kale oo macaasida iyo dunuubta raadka ay ku reebto qofka maxaa kamida sawaadan fil wajh wajigaagi madow buu isu bedelayaan. طيب haddii ay intaa noqon lahayd way roonaan lahayd wa dhulmatan fil qalbi. wa huna الشاهد الثاني ظلمة في القلب qalbigaagina mugdi buu noqonayaa. ولو فرصة يا إخواني مجدي أو كهل لينا وكي رسولك صلى الله عليه وسلم حديثك وجهل لي أولها صلى الله عليه وآله وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستعتب صقل من قلبه وإن زاد حتى تعلو قلبه وذلك الران. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قلبك قفك إذا أذنب ذنبا waxay noqonaysaa nukta ayay noqonaysaa oo madow ayay ku noqonaysaa. hadduu ku sii darsadana waxay noqonaysaa bar kale oo madow point madow oo qalbiga hadduu ku sii daro mid saddexaad ilaa marka u dambaysa qalbiga oo dhan shabaq wada madow uu noqdo. wadaalika arraan rasuulka sallallahu alayhi kalla birrana ala qulubihim ma kanu yasab. idan ahibati fi alislam taasna waa dhulma fi alqalb. arinta saddexaad oo hadii dambigaagu uu batiyo macaasidaadu asarkii raadka ku reebayso waxa weeye wahnan fil badani badankaagina ducfi baa koraya. billahi alayka u fiirsada misaal haddaan keeno qofku waa xoog badan yahay waa tabar badan yahay laakiin ma awoodi karo inuu soomo inuu gaajada uma adkaysan karo inuu saacado kaliya cunto daayo ma awoodi karo. waa wahni soo ilaahay qofku waa jir weyn yahay waa xoog badan yahay laakiin ma awoodi ilaahay 2 ragcadood inuu kaco salaada subax uu soo kaco ama salaatu leel warkeeda badaa subax inuu soo kaco ma awoodi karo. ووهنا في البدن. طيب وحاكلوا إلهي سبحانه وتعالى كسمينيا والنقص في المال معاصي هذا بدتي حولها جيب إلهي نسقامينيا ومدي أن هرق صوح هذا الله إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وحديث حسن كشيخ الألباني وكان تيو وكلوي ابن عباس نمد شاهدك وأصمينيا والنقصا في المال. طيب تاسنوي كل حولها جي ونسقام بكفر معي حتى هدات شقيسو ميلي كبحين أركيس بركة أركي ميس بركة إلهي سبحانه وتعالى وكقاضية ونقص في المال. إخواني مد أود بس هذا الكاس وحويه وبغضة في قلوب الخلق. إلهينا سبحانه وتعالى خلقي كلا قلبي قوضا نعيب شوكو قلينيا وفرصة قف وحاتها الليتا إلهي حقي سالغان نعي إلهي حق معاصر هذا بضتي ذنوبتاada badatay gefkaaga batay allaad ka gashaa ummadaad ka gashaa mar haday ay sidaas tahay xagga rabbi baa nacaybshaha uu ka soo dagay ahlu samihi baa ku nacay ahlu ardaha ku nacay ummadoo dhan oo lagu leeyahay qofka magacaaga markii la soo sheego naga daaya kaas hanagu soo sheegina ayaad arkaysaa bughda fi qulub alkhalq. taasi ikhwaani waxa weeye afarka iyo raadka ay ku reebto qofka bini aadamka ay ku reebto waxa kamida in ay qofka macaasida haddii uu maaragtay uu badsado afarka kuu reebi macsiyadaba inaadan wax dhibaato ayna kula lahayn oo qalbigaagu uusan diidaynin oo caado ma'luuf oo samaynayso oo kale ay kula noqoto oo macsiyadnimadeedii dhibkii laga qaado wamaa li jurhin bimayitin ilaamu wax dhaawic iyo wax xanuuna ku yeelan mayso. ماشي ضدك في عن إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مسرون لكيهن ضدك وناكسة لكن أذيك كنت دريم ميسد كنا سامين ميس. وحكم إذا إخواني طاعاتك إنه قفكو كتغو وقل رمضان هل بيوضع معنا يعني واقول رمحات سمي جرت خميس بتسوي جرت اثنين بتسوي جرت أيام البيت بتسوي جرت لكن ما أنت حالد ولا كنت بيسا صلاة دي واجب كايد بالغ يا بينا وكعني شنتي صلاة دينا تكون كرين يعني دعاتك ودمانيا هل بوصير دمانيا وصونكي يا صلاة دي سنوينكي بعد ما ركتي عاد رمضان بعد كسو ورصتي سنوينكي صلاة دينا وتكون جرت صلاة كسر رواتب تقدر راعي جرت لكن ما أنت واجب كي كسو ورصتي مركب قفك إني قاب كاسو كله إخواني وحد وقاتان إني معاصدو أيس لشو تاسنا وعرين كله وقعد قضبض الشيخ ابن القيم كمتاي معاصدو معصيده معصيه كلا دليسا الى marka dambe ay wada dhalaan waxay noqonaysaa dambi baad sameysay dambi kale u soo hadaan wax yaraan soo qaadan
khabrada dadka cabba ka soo qaadiya darooga markaad aad isticmaasho waxay sii dhalaysaa maaragtay inaad zina samayso, inaad qatligii iyo dilkii aad sii samayso, inaad fisq hadal xumo sii samayso, inaad ilaahay caydo marka dambe, inaad rasuulka caydo, inaad diintii caydo, inaad inta u sii gudubto. marka macsiba mid bay sii dhalaysaa iyaduna. ilaahay subxaanahu wa tacaala kelimadoo iska koobnayd insha allahu tacaala intaasaan ku soo koobaynaa. rabbi subxaanahu wa tacaala macaasida iyo dunuubta allah inaga ilaaliyo. ilaahayna subxaanahu wa tacaala dembigeenna rabbi subxaanahu wa tacaala hainoo dhaafo, qalbigana allah hainoo ilaaliyo, qowlkeenna iyo hadalkeenna allah ilaaliyo, kuwa iswaafaqsanna ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka dhigo, cilmigeennana naafic ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka dhigo, liajli illaahi kelimad loo gutay rabbi subxaanahu wa tacaala ha ka dhigo. allahna subxaanahu wa tacaala anigii idinkaba allah inagu anfaco. wajazaakum allahu khayran وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.